wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii uu qabsoomay wasaaradda isagoo sidoo kale sheegay inuu wada qorshe ku wadan dhismaha xarumo loogu talagalay qaadista canshuuraha sida warkan uu ku faahfaahinay wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Kulmiye wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku taagan tahay wadada lagu gaarayo isku filnaanshaha iyo horumarka kobaca dhaqaalaha taasoo qayb weyn ka qaadanaysa kororka dakhliga gudaha ee dowladda ka soo gala. wadadu waxay tilmaamaysaa in badan baynu ka dhacsanaynaa wadada ku dhacno waxyaalo badan bay leedahay marka wadada waa soo soconay intii hore dhan waa idinka warramay halkaan maanta ka taaganahay wadada iyo halka ku dhammaan doonto ayay tahay inaad si fiican u fahamtaan oo dabeetana doodiina iyo magaranaysa taladiina iyo tilmaantiina aad noo soo gudbisaan wadadaasi waxay odhanaysaa saddexdii biloodba dakhli noocaas oo kale inaad gaadho ayay odhanaysaa adduunku wuxuu ku shaqeeyaana waa dakhliga adigu jeebkaa ka keento ayaa lagu shaqeeyaa wasaaradda maaliyadda ayaa wada qorshe dhawaan lagu dhisayo xafiisyada lagu qaadi doono canshuuraha ee degmooyinka gobolka Banaadir meelo badan oo canshuuraha lagu qaban lahaa ayaa duusan way naga duusan yihiin eegada si fiican inuu wada soconaa rabaa meeshii canshuuraha lagu qabanayay ee degmooyinka xamar meelaha kale aanu tagnaba hadhow waa duusan yihiin in la dhisana waa loo baahan yahay haddii kale dadkii meel yimaadaan oo ay arrimahoodii iyo dacwadooda keenaan ama cashuurihii wixii lagu qabto systemka la geeyo ma jiraan waxaa markaa systemkeedii aan haynaa inaan dhowaan soo shaacin doono ciddii ku guulaysatana la isla ogaan doono kuwaasaa la dhisi haddii ay baydmo dhowaan waxaa kaloo la dhisi meeshii turubataariyada oo berigii qarxa meesha ka dhacay dekedda agteeda ku burburay asagana waa la shaacin doonaa ciddii ku guulaysata ayaa dhisi doonta isku dheelitirnaanta iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha maaliyadda ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ayaa qayb ka ah sidii dalka loo gaarsiin lahaa nidaam maaliyadeed oo kobaca dhaqaale sameeya sida uu yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele shaqaynayna oo kale arrimaha isku dheelitirka wadankani one nation weeyaan federaaleynta aad waxaan ugu mahadcelinayaa nimanka wasiirada ah wasiirada maaliyadda ka dowlad goboleedyada xubnaha ka federaalka iyo sidaan u wada shaqeyno waa isku xidhanahay waa wada shaqeynaa waxaan ka wada shaqeynaynaa sidii uu wadankani wadan u noqon lahaa oo haddii aan shari dad kale la galno aan inagoo Soomaaliya ula geli lahayn financeeskeenaan ka hadlaynaa governance-keenaan ka hadlaynaa annagoo Soomaaliya oo dhinac ka wada fadhina miiska waxaan isku raacsannahay inaan danta Soomaaliya ka hadalno dakhliga ay ururiyaan ama soo gala hay'adaha kala duwan ee dowladda ayaa la mideeyay ilaa iyo 3 bilood ee la soo dhaafay waa nidaam tilmaamaya daafurnaan maaliyadeed ee Soomaaliya annagoo tixraacayna qawaaniinteena iyo baaqi dheeraa ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu jeediyeen in lacagaha lagu soo wareejiyo wasaaradda maaliyadda ayaduna mas'uul idin ka noqoto ayaa iyadana aan hirgelinay waxaan markaa noo suurta gashay inaan soo wareejino dakhliyadii ay qaadi jireen wasaaradda kalluunka wasaaradda warfaafinta wasaaradda hawlaha guud wasaaradda tacliinta wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda amniga oo wali ku harsan yahay baasaboorkii lacagtii baasaboor ku harsan yahay iyagana aan ka ballansannahay maxkamadaha iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha talaabooyinka la qorsheynayo in la dhaqangeliyo waxaa ka mid ah meelmarinta iyo hirgelinta miidaanta canshuuraha dalka Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.